give see a man nin a fish kalluun and you feed him for a day waxaad quudisay hal maalin. Show him how to catch fish tus ama bar sida loo qabsado kalluunka and you feed him for a lifetime waxa aad quudisay noloshiisa oo dhan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Welcome back. Soo dhawaada mar kale. Cashirka maanta waxa uu ku saabsan yahay waxa weeye proverbs, mahmahyo proverbs. Mahmahda ugu horeysa waxa la yiraahdaa look before you leap. Look before you leap. Inta aadan boodin ka fiirso. Ereygan leap macnihiisa waxa weeye jump or bootin. This means tan macnaheeda waxa weeye think before you do something. Inta aadan wax falin ka fiirso marka hore. Think before you do something. Inta aadan wax samaynin ka fiirso. Mahmah u dhiganta oo af Soomaaliga ah waxay noqonaysaa intaadan falin ka fiirso. Mahmahda labaad, two wrongs don't make a right. Two wrongs don't make a right. Taas macnaheeda waxa weeye laba khalad sax ma noqdaan ama laba khalad sax ma samayn karaan. You can't ma awoodid correct in aad saxdo one wrong hal khalad ama one wrong thing hal shay oo khalad ah by doing adiga oo samaynaya something else shay kale that is wrong kaas oo khalad ah. Khalad kuma sixi kartid. You can't correct one wrong thing by doing something else that is wrong. Next proverb, mahmahda xigta waxay leedahay laugh and the world laughs with you. Weep and you weep alone. Laugh qosol and the world laughs with you. Adduunyada way kula qoslaysaa. Weep oy and you weep alone. And keliga ayaa ooyaya. Macnaheeda waxa weeye marka aad faraxsan tahay ama aad waxaysato adduunyada oo dhan way ku jeceshahay laakiin marka aad dhibaataysan tahay markaasi keliga ayaa dhibtoonaya. Marka mahmahdani waxa weeye oo la yiraahdaa laugh and the world laughs with you. Qosol dunida way kula qoslaysaa. Weep and you weep alone. Oy keliga ayaa ooyaya. Next proverb, mahmahda xigta. A bird in hand is worth two in the bush. Shimbir gacanta kuugu jirta waxa ay u dhigantaa labo duurka ku jirta. A bird shimbir in hand oo gacanta kuugu jirta is worth waxay u dhigantaa ama waxay la qiimo tahay two in the bush labo ku jira duurka. Macnaheeda waxa weeye what we have waxa aan haysano are more valuable ayaa ka qiimo badan than what we expected to get. Waxa aan filayno inaan helno. Waxa aanu haysano ayaa ka qiimo badan waxa aanu filayno in aanu helno. Mahmah Soomaaliya oo u dhiganta waxay noqonaysaa midho guntiga kuugu jira looma daadiyo kuwa geed saaran. Next proverb, mahmahda xigta. You can lead a horse to the water, but you can't make it drink. You can lead waad awoodaa inaad u hogaamiso a horse faras to the water biyaha, but laakiin you can't make it drink laakiin kuma qasbi kartid ama kama dhigi kartid inuu cabo. And you can show macnaheeda waxa weeye you can show people dadka waa tusi kartaa what you want them to do waxa aad doonayso inay kuu sameeyaan, but laakiin you can't force them to do it kuma qasbi kartid in ay sameeyaan. Mahmah u dhiganta oo af Soomaali ah waxay noqonaysaa qooley qoorqabad biyo kuma cabto. You can lead a horse to the water but you can't make it drink. Next proverb, don't count your chickens before they hatch. Don't count ha tirinin your chickens digaaggaada before they hatch inta aan ukunta la bujinin. Macnaheeda waxa weeye it's not
a good idea ma aha fikir wanaagsan to make plans inaad qorshe dejiso based on what you expected to happen adiga oo markaasi ka qiyaas qaadanaya waxa aad filayso inay dhici doonaan haddii aad 10 ukumood haysato macnaheedu ma aha 10kaas ukumoodba inay digaag isku bedelayaan marka don't count your chickens before they hatch ha tirin digaagaada intaan ukunta la bujinin next proverb one picture is worth 1,000 words one picture is worth 1,000 words hal sawir waxa uu u dhigmaa 1,000 eray one picture hal sawir is worth wuxuu u dhigmaa ama wuxuu la qiimo yahay 1,000 words 1,000 eray taas macnaheedu waxa weeye a picture sawir can explain ayaa qeexi kara ama sharxi kara things waxyaabaha better than words si erayada ka fiican sawirka wuxuu bixin karaa sharaxaad ka fiican erayada next proverb a friend in need is a friend indeed a friend in need is a friend indeed saaxiibkaada waqtiga aad baahan tahay ama waqtiga aad dhibaatada ku jirto ayaa ah saaxiib dhab ah a friend saaxiib in need waqtiga baahida ama dhibaatada is a friend indeed ayaa ah saaxiib dhab ah indeed waa dhab need waa baahi the person qofka who helps you oo ku caawiya when you are in trouble marka aad dhiban tahay ama aad dhib ku jirto is a true friend ayaa ah saaxiibkaada runta ah next proverb one man's meat is another man's poison one man's meat is another man's poison qof waxa u fiican ayaa qof kale la xun marka one man's meat and nin hilibkiis is another man's poison qof kale suntiisa weeyaan don't judge a book by its cover don't judge a book by its cover book ha ku xugminin jaldigiisa ama galkiisa yacni waxaa laga yaabaa inuu jiro book galkiisa ama jaldigiisa uu fool xun yahay laakiin wax badan aad ka faa'iidi karto iyo sidoo kale book laga yaabo galkiisa ama jaldigiisa inuu qurux badan yahay laakiin wax macno la aysan gudihiisa ku qornayn marka inta aad ka akhrinayso buuggaasi ha xukminin waxay la macno tahay yacni qof markaad aragto sida uu u labisan yahay iyo xukun ha iska gaarin oo qofkaasi ama si indhala-aan ha isaga aaminin ama si indhala-aan ha isaga nacin inta aad qofkaasi ka baranayso dabeecaddiisa iyo wax kasta next proverb don't make a mountain out of an anthill don't make ha ka dhigin a mountain out of an anthill yacni dudumo yar ha ka dhigin buur dudumo yar intaad aragto buur ha ka dhigin macnaheeda waxa weeye yacni wax yar oo dhibaato yar haddaad aragto wax weyn oo aan laga soo kaban karin ha ka dhigin next proverb all that glitters is not gold all that glitters is not gold wax kasta oo dhalaalaya dahab maaha all that glitters is not gold wax kasta oo dhalaalaya dahab maaha next proverb don't bite the hand that feeds you don't bite ha qaniinin the hand gacanta that feeds you oo ku quudisa gacanta ku quudisa ha qaniinin next proverb it is better to light a candle than to cast the darkness it is better waxa ka fiican to light a candle in aad shamac shido then to cast the darkness intii aad mugdiga habaari lahayd macnaheeda waxa weeye it is better to do something about the problem than to complain about it dhib intii aad ka calaacali lahayd ama aad ka caban lahayd waxaa ka fiican in aad wax ka qabato it is better to do something about the problem than to complain about it next proverb give a man a fish and you feed him for a day
show him how to catch fish and you feed him for a lifetime. macnaheeda waxa weeye macnaheeda waxa weeye qof haddii aad wax siiso qofkaasi in yar ayaad caawisay ama waxaad u tartay wax yar laakiin haddii aad barto sida wax loo qabsado noloshiisa oo dhan ayaad wax u tartay marka waxa weeye give see a man nin a fish kalluun and you feed him for a day waxaad quudisay hal maalin show him how to catch fish tus ama bar sida loo qabsado kalluunka and you feed him for a lifetime waxa aad quudisay noloshiisa oo dhan cashirkii maanta intaas aynoo joogo inta aynu ku kulmi doono cashirkan oo kale ah waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you for watching this video. Please don't forget to subscribe and share the video.